waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inay fadhiyaan sawirada haddaan wax yar idin sharxo gabadhan luul axmed joogo waa la yidhaahdaa jaamacaday dhiganaysay fasaxeedii baxday waxay tagtay Xarlugoole si ay shaqo u soo qabato Saynab Cali Rashiid waa nala fadhisaa way imaan doontaa jaamacadeedii ka tagtay waxay u tagtay inay shaqo soo qabato Xarlugoole Fardows Abdullaahi Abikar waa nala fadhisaa jaamacadeedii ka tagtay waxay u tagtay inay soo qabato shaqo Xarlugoole titoorka iyo rag badan hadda waa noo balansan yihiin insha Allah sanada soo socda inay baxaan oo dadka caafimaadkooda wax ka soo qabtaan insha Allah alxamdulillah hawlo badan la qabtay maanta dadka deegaanka Xarlugoole ku nool ma u maleynay inay u baahdaan inay meel kale soo aadaan oo deegaankoodii wax allaal waxay u baahnaayeen ay ka heleen intaasna in laga sii hormaraan rajaynayna oo dhalinyaradu wali ma aysan fariisanin wali waxay diyaar u tahay in la sii hormaro oo tilaabo ku sii xigto dugsiga waa dugsi hoose iyo dhexe hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan rabnaa dugsi sare inaan hadana sameeyno oo aasaasno insha Allah horumarkaas waxaan rabnaa inaan laga hakanin waxaan kala rabnaa walaalaheen baadacada ayagana alxamdulillah waxa jira dad badan oo ayagana howlahaas sameeyay oo tilaabadaas ku dhaqaaqay in ayagana sii wadaan oo aan la caajisin si ay u soo baxaan deegaamo badan oo baadacada ay leeyihiin ay ka soo baxaan dhalinyaro wax baratay adduunkan markii wax la barto waa laga hormarayaa jaahilnimada qofka jaahilnimada haduu ka baxo wuxuu gaarayaa heer uu asaga kaligiis ismaareyn karo marka insha Allah jahliga aan la dirirno sida maanta baan u istaagnay dhamaan wiilal iyo gabdhaba aan ula dirirna jahliga aan ula dirirna gaajada mar walba aan saas ugu taagnaano intii ka qayb gashayna waxaan leeyahay waad mahadsantihiin bilad sharaftan waxa la gudoonsiinayaa oo iska leh Mahad Maxamed Abdulle Mahad Qorgaab oo ku sugan magaalada Nairobi maadaama munaasabadan uusan xaadir ku ahayn oo ka maqan yahay waxa uu gudoomaya Maxamed Xuseen waliyo waxaana maanta halkan goobjoog ka ah dad badan oo la soo shaqeeyay sharaf ay noo tahay in isagoo maqan aan gudoonsiino bilad sharafkan waliyo maanta isaga ayaa gudoomaya bilad sharaftan bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waa maalin weyn waa maalin taariikhi ah waa maalin wixii in muddo ah dhowrkii sano la soo dhaafay laga soo shaqeynayay maaragtay miraheeda la goranayo isla markaasna aan aragnay faa'iidada ay maaragtay yeelatay sidaa darteed anigoo ah Maxamed Xuseen Nuur Waliyo waxaan u gudoomayaa walaalkay Mahad Maxamed Abdulle oo loo garan og yahay Mahad Qorgaab waa gudoomay waxaan aaminsanahay in Mahad uu yahay waxaan maanta aan halkan u joogno dadkii udubdhaxaadka u ahaa ee ka soo shaqeeyay haddana rabo in deegaanka wixii uu qabtay wax ka badan ama ka dheeri ah inuu sii siyaadiyo marka waa gudoomay waana bogaadina Mahad marka waadi mar labaad hambalyo aan halkan anigoo hortaagan gudiyada Samaroob guud ahaan iyo inta ka soo shaqeysay wanaagii 6 sano socday ee walaalaha mayga ku nool ee dhalinyarada Samaroob waxbarashadooda loogu qabanayay in maanta aan gudoonsiyo waxa sharaf ah shahaado sharaf ku socoto Raxma Xaaji Yuusuf oo u gudoomaya Maxamed Cali Nuur السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد علي نور وحن كود دونسينيا شهادة الشرف كسعته رحمة حاجي يوسف كل نول ودنك إنجليز كعاصمة ديس لندن وحن مركينا يجا دونتين كعوتنا إن شاء الله بسم الله وحن شهادة الشرف كان قدوم ولا شيء رحمة حاجي يوسف رحمة الله waxayna ku mutaystay dadaalkii ay qayb ka ahayd xafladan maanta bismillaahir rahmaanir rahiim waxa sharaf ah in maanta aan gudoonsiyo Daawud Xasan Cashiro oo wakiilka Cabdullaahi Maxamed Xaaji shahaado sharaf insha Allah bismillaah assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu maanta waxa sharaf ah inaan gudoomo shahaado oo mutaystay gudoomi ku xigeenka
guddiga fulinta dhalinyarada Samaroob Daawud Cashirow anaga ayaa u gudoomiyay shahaadadiisa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaana socotaa munaasabadeennii bixinta abaalmarinada oo aan dadka wax qabtay ama muddadii sanadaha badan ahayd soo shaqeynay aan ku guddoonsiinayno mahadsanidin inaan dhahno oon ku xusno. halkan waxaan rabaa in aan ku bixiyo oo la iigu sharfay in aan gacanteyda ku dhiibo mar kale shahaado sharaf mahadsanid lagu leeyahay walaalkeen Axmed Yuusuf Maxamuud gudoomiye ku-xigeenka dhalinyarada Samaroob oo runtii Nairobi jooga oo aan aad ugu sii faraxsanaan lahayn in maanta uu halkan nala joogo. Cabdiraxmaan Axmed ayaa aan ku wareejinaya si uu ugu gudoomo oo wakiil ugu sii ahaan doono. bismillaahir rahmaanir rahiim. waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan shahaad sharaftan u gudoomo walaalkay Axmed Yuusuf Maxamuud oo Nairobi joogo. waxaa leeyahay hambalyo brada waa shahaado inta in ka badan u qalantaa dadaalka iyo juhdiga aad gelisay hawshan. waxaana ku leeyahay hawsha intaan in ka badan inaad sii wadi doontaan doo Ilaahay yiraahdo. mahadsanid. bismillaahir rahmaanir rahiim. waxaan rabaa maanta farxad iyo ah in aan shahaadadan aan guddoonsiiyo Luul Axmed Joogo oo ku maqan gobolka Hiiraan. waxaan rabaa inaan guddoonsiiyo Saare Cali Mire. run ahaantii Luul shahaado sharaftan maanta inta lagu bixinayo waad mutaysatay waxaadna ku mutaysatay dadkaada iyo dalkaaga iyo sida aad wax ugu qabatay. waxaan rajaynaynaa Soomaalina waxaad u sii qabatay haddii Ilaahay yiraahdo waa bilow. waxaan rabaa inaan guddoonsiiyo Saare Cali Mire ayaa u guddoomaysa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحا شرف وين إنان أقدوم ولا شيء لول أحمد جوجو شقدي وينات وقبتي دلكيدي يدتكيدي ويكون حسنتهاي إنتاس إن كبدن آيات استهشاء هو القرن ماذا هذا وحن رجينا إن كبدن يسين قاعدة دون توادنكم حسنتهاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وحن ربا فرحة وين إنان شهادة قدون سيو فردوس عبد الله أبيكر. فردوس شهادة waxay ku mutaysatay hawlkarnimadeeda dadnimadeeda aqligeeda fikirkeeda iyo wanaaga ee dadkeeda iyo dalkeeda ay u haysatay ayay ku mutaysatay maanta in la guddoonsiyo iyadoo ah wali gabar dhalinyaro ah oo maanta soo koraysa ah inay u istaagto waxaan mustaqbalkana ka rajaynaynaa inay noqoto madaxda mustaqbalka familka ay noqoto haddii Ilaahay yiraahdo. Saar waan kaaga mahad celinayaa wanaaga iyo walaalnimada aad la timid oo maanta lagu guddoonsiinayo shahaadadan. waa mahadsantihiin dhammaan xafladan sabrayska ah waana idinka guddoomay shahaado sharafta. insha Allah deegaanka iyo dadkaba intaan ka badan waa naga istaahilaan horumaraan idin rajaynaa dhammaantiin. bil sharafkan waxaa iska leh gudoomiyaha guddiga la xisaabtanka Cabdiraxmaan Daacad. waxaan u guddoomi doono Cabdiraxmaan Diini. marka waxaan rajeynaa Cabdiraxmaan Daacad bahdaadii inay ku guddoonto biladaada maadaama anaga maqan tahay. biladan waxaan u guddoomayaa Cabdiraxmaan Daacad oo ku nool wadanka Ingiriiska si gaar ah caasimaddiisa London. maadaama bahda saxaafadda ka mid yahay anigana bahda saxaafadda aan ka mid ahay anigoo matalayo ayaa bilad sharafkan u guddoomay. waana kaaga mahad celinayaa dadaalka aad u gashay horumarinta deegaanka Xarlugoole gobolka Hiiraan oo hoostaga si gaar ah degmada Jallaqsi. mahadsanid Cabdiraxmaan Daacad. bilad sharaftan waxaa mutaystay oo iska leh afhayeenkeena qaaliga ah noogu shaqada badan noogu dadaalka badan hadduusan asaga ahayn waxaan u maleynayaa dhammaanteen waan wada seexan leen. waxaan leeyahay haddaan magaciisa idiin sheego Cabdifataax Xasan Cismaan Shanleyste waa nin karti badan. biladan iyo ka badanba waa ninka naga mudan. waxaan leeyahay Cabdifataax guuleyso weligaa horumar iyo guul iyo waxaan ku rajaynayaa cimri dheer iyo caafimaad qab. bilad sharafta waxaa kuu guddoomayso oo halkan kuu taagan guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Shibis Maryan Cabdulaahi Gacamey. بسم الله الرحمن الرحيم. ugu horeyn waxaan salaamayaa dhammaan xafladan dadka soo qayb galay gaar ahaan waxaan salaamayaa Cabdifataax Shanleyste
cabdifataax anaa kuu guddoonsiiyey shahaadadaada maanta kuu qaaday waxaan ku leeyahay waxaad ku mutaysatay wanaaggii iyo sharaftii iyo waxqabadkii iyo dadnimadii aad la timid maanta waxaan aan u guddoomaa aan u haayo shahaadadaada waxay tahay adigoo arrimaha bulshada magac Soomaaliyeed iyo magac baadacada mar walba ka shaqeeya horumariyo ciddii hoosena si fiican u hormariyay saas daraadeed aan xafladan ugu soo qayb galay inaan guddoomo shahaadadaada aan ku guddoomo waad ku mahadsantahay dadaalka aad sameysay insha Allah